Assalaamu calaykum asxaabi soo dhawaada. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago doolshe insha Allah fudud oo macaan. Marka asxaabay 3 xabo ukunaan soo qaatay iyo baaquli. Marka 3 xabo ukuntaa ka bilaabay. Wax walbana waxaa u isticmaalayaa cabir. Marka insha Allah soo dhawaada. Fadlan subscribe hala ii saaro channelka. Haddii videogaygu soo gaaro subscribe ii saar. Haddii aa hore iigu saartayna waa mahadsan tahay. Marka hadda ukuntiyan qastay waxaan rabaa inaan ku darsado sokor. Koobka nuskiisa oo sokora sheygan aan isticmaalayo aan cabirka u isticmaalayo wuxuu qaadaa koob nuskiis. Marka hadda waxaan ku darsaday koob nuskiis oo sokor ah. Marka haddana waxaan rabaa inaan isticmaalo subaga asagana cabir uu leeyahay, cabirkiisa uu ku qoran yahay. Marka meesha ku aadan inta aniga aan u baahanahay rabaa inaan ka goosto. Waxaan rabaa inaan isticmaalo 50 gram. Marka malqaacada xaashida korkeeda ku qoran tahay inta 50 gram aan ka soo goostay. Marka hadda subag waa soo dhalaalsaday microwave-ka ku soo dhalaaliyay kadibna waa ku darsanayaa. Marka asxaabi haddana waxaan rabaa inaan ku darsado caano. Waxaan isticmaalayaa isla weelkii aan isticmaalay cabirka u isticmaalayay. Koobka caanaha barkii waaye. Koob caano barkii aan ku darsaday. Half bakeeri caano diiran ama caano qandac ah. Marka hadda waxaan rabaa burka inaan ku darsado. Koob bur ah baa ku darsanaya waa 2 jeer. 2 jeerna waxay noqonaysaa koob. Marka weelkan aan isticmaalayo waa shaq. Burku ii shaqi doonaa. Marka anoo qasanayo ayaan shaqanayaa. Waa muhiim inaad burka keega aa shaqatid. Waxay ka qayb qaadanaysaa doolshaha aad dubatay inuu noqdo mid ma aragtay qurux badan oo si wanaagsan u kala kaca oo ma aragtay isku siman. Marka insha Allah taas la ogaado. Marka waxaan isticmaalayaa hadda qaandada caadiga ah oo kala weeye waa 1 qaando oo baking powder ah iyo waxaan kaloo isticmaalayaa 1 qaando oo vanilla powder ah. Sidoo kale waa shaqanayaa baking powder iyo vanilla powder si ma aragtay burtuq iyo waxa haduu jiro uga baabao. Marka asxaabi hadda keeggeeni waa diyaar. Waxaan soo qaadanayaa saxanka aan ku dubi lahaa. Waxaan marsaday wax yar oo subaga marka si fiican u mariyo waaye oo wax yar oo burana aan ku kor shaqo si ma aragtay hadhowdii uu si fiican uga soo baxo. Macnaha doolshaha markuu bislaado ka bacdi si fudud asagoo inuu meelna kaga dhigin. Marka hadda aan ku shubanayaa cajiinka ka bacdina saas ay ku dhamaatay. Waxaan ku dubi doonaa insha Allah foornada 170 20 ilaa 22 daqiiqo inta u dhaxaysa. Foornadana waa inaan markii hore aan si kuleelsaday. Adiguna haddaad doonaysid sidoo kale inaad u samaysatid foornada waa inaa xilli hore sii daartaa intaada keegaba aadan qasin ka hor insha Allah. Hadda waxaan sii samaysanayaa creamka aan marin lahaa
waxaan ka sameynayaa caanaha subaga leh ama subaga ku badan yahay caano cream iyo cheese cream, wax yaroo caano cream ah iyo wax yaroo cheese cream ah. Cabirka adiga yaqaano, qof walba waxay ku xiran tahay inta keegiisa uu la egyahay. Marka intaa doonto ayaad qiyaasan kartaa. 2 malqacdood aan ku darsaday, kabacdina waxaan rabaa inaan intaa isku qasto aan ku daro 2 qaando sokor ah. Sokor badan ma isticmaalayo. Marka intaa waa isku soo qastay, waa isku soo garaacday, wuu adkaaday. Kabacdi waxaan ku darsanayaa bahalkan kale oo macmacaanka ilmaha rootiga ee marsadaan nooc ka mid waaye, nacnac camal ah ee sokorta ku badan tahay, 1 qaando keliya. qof walba wuxuu u doono isticmaali karaa. Kuwa aniga isticmaalaya waa isticmaali kartaa. Kuwa adiga aad taqaanid ama meesha aad joogtid laga helaan, dadka dhan isku wada ma joogaan, isku wax ma wada ahan, waa isticmaali kartaa. marka maasha Allah keegi waa kana uu ka soo baxay asagoo si siman oo qurux badan ma aragtay u dumay isla eg. maasha Allah lagama sheekeyn karo. asxaabi marka waxaan isticmaalayaa waxa waaye macmacaanka ka magaciisa waxaa la yiraahdaa aan soo xasuustay caramella waa midka lagu darsado jalaatooyinka iyo ice creamka maartay iyo keegagii waxaa lagu daro asagoo adag. marka kana marka hore marsanaya ka markaa marsada ka bacdina waxaan marsan doonaa insha Allah aan saari doonaa miro macmacaan. wax iska macmacaan, qofba macmacaan ku rabo wuu marsan karaa ama suu rabo u sharaxan karaa, wixii marka adiga aa haystid waaye. ani mirahan haystaa iyo insha Allah mirahaasaan aan ku sharaxday. kabacdina creamkii aan daqiiqasaan dusha kaga shubay. kadibna miro kale waa kana waa liinta qolofteeda, liin macaanta qolofteeda oo macmacaan laga dhigay, sibiib camal ah. marka maasha Allah waxaan quruxda badan isku soo baxday, lagama sheekeyn karo dhadhankiisa. creamka aan dusha kaga daray ama caanaha aad uma adkeenin, anaa ugu talagalay inuu saa u jilicanaado. marka maasha Allah alaabta inaba caadi maahan ku dhahay macaan.